waxaa laydin dhagax dhigayaa waddada isku xirta Jubba ilaa 4 Jardiiro waddadaas ayada ah in muddo ah ayaan sugaynay in la dhiso bulshada meesha ku nool qaarkood ayaa mar walba waxay lahaayeen annaga diyaar u ah inaan qayb ka qaadano balse markii qayb ka qaadadkii la rabay inuu wax bilowdo waa u suurageli weysa inay wax dhaqaale ah ama taageero ah ka geystaan runtii waddooyinka gobolka Banaadir qaar badan oo kamid ah waa la dhisay kuwana hadday ka socdaan kuwana waa ku sii xigaan oo waa la dhisi doonaa si aan u helno waddooyin dhisan oo dhammaystiran burburkii magaaladan soo maray kadib waxaa jira waajibaad laga rabo bulshada oo bulshada saaran iyo waajibaad saaran maamulka gobolka Banaadir saaran kan degmada saaran dawladda federaalka waxaa la doonayaa danta guud in la isu kaashado oo qayb walba oo bulshada kamid ah ay qaybka uga aadan ay ka qaadato markaasaan gaari karnaa meesha aan hiigsanayno maamulka waxaa laga rabaa sidaan oo kale ama dawladda federaalka ha kaashado ama cid kale ha kaashadee ama iskii ha isugu tashadee waddooyinka magaalada Muqdisho inuu dhiso mas'uuliyaddaasaan qaadanay waa annaga qayb badanna qabannay qayb badanna hadda wadna waxaan codsanayaa waa ku mahadsantihiin shacabkeenna iyo taageeradiinna laakiin warka inaad dhegaysataan waa noo sacbin doontiin heesihiinna waa ku faraxsannahay iyo halkudhigadiinna laakiin na dhegaysta waddada waa dhisaynaa mid kaloo dhiman hadday jirtana waa dhisaynaa magaaladoo dhanna dhismaheeda waa dhammaystiraynaa waddooyinkeeda insha Allah taala taasi waa mas'uuliyadda annagu aan qaadnay bulshada waxaa laga rabaa ayagoo maamulka degmadu oo hor kacaayo meesha la dhisay ee biyo fadhiyaan ee qashin lagu soo qubay ee niyad jebinaysa inaan la arag soo dad nool oo sharaf lama hedin waddada kilometerka waxaa lagu dhisaa $1 milyan kilometerna waxaa laga yaabaa Jubba ilaa meesha taagan inuu ka yaryahay $1 milyan lagu dhisaa wax fudud miya haddii marka sidaas loo dadaalay oo qiimahaas faraha badan ee lacageed la bixiyey oo juhdu yani aan waxba lala harin la sameeyey ee meesha maanta jawaana qashiri ay noo yaalaan diniyad xumada ka dhalan karta markaas kale waddadu waa waddadiinni dalku waa dalkiinni magaaladu waa magaaladiinni waxaa la rabaa ama ha ahaato laamigii la dhisay ama kii weli aan dhismo helin ha ahaato ama jidadka xaafadaha mara ha ahaato bilicda magaalada waa inaa ku dadaashaan ilaa anaga inta iskooba soo qaadno idin ma xaqi karno magaaladiina iyo degmadiina idin ma xaqi karno baabuurta dawladda hoose nadaafadda ka shaqaysa waxay maraan waddooyinka muhiimka ah wax qashin ah ee meesha lagu soo diyaariyey ayay subaxda hore intay soo kala xaanay ururiyaan arrintaas marka waa maamulka gobolka Banaadir waajibaadkiisii adinka kiina inaad garataana la rabaa oo waxa adinka idinka dhaxeeya waxna waa idinka dhaxeeya waxna gaara u leeyahay guriyihiina cid walba gurigeeda gaar u leedahay biilkeeda gaar u leedahay alxamdulillah Allah idin barakeeyo laakiin laamiga iyo jidka xaafadda mara iyo waxyaabaha la midka ah xarumaha maamulka ama hadda tii degmada ama hadda tii waaxda waxaas waa dan guud way idinka dhaxeeyaan kuwii adinka idin dhalay ayaa loogu shaqay jiray ama mari jiray kuwa aad dhasheen ayaa la rabaa inay maraan ama loogu shaqeeyo
kuwa imaan doonana inay dhaxlaana la raba haddii meeshii ay burbursan tahay oo burburkeedii aan mataqaanaa laga hortegayn aysan cid la xumayn oo inay wasakh tahay aysan idinla xumayn maxaa laydinka dhaxlaa oo aan xumaan ahayn waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo isla markaas aad iga aqbashaan qaybka adinka aad leedihiin inaad qaadataan biidnillaah intaasaan raba dardaarankeenu inuu noqdo waxa noo ballana magaalo nadiif ah oo ifaysa isla markaas nabad ah halku dhageena muxuu ahay bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah haddaan bulshadu nabad ahayn nadaafad lamaba keeni karo marka nabadu maba jirto nabaddii waa lagu dadaalay alxamdulilah meel fiicanaan marsiinaynaa wax dhiman waa dhammaystiraynaa nadaafaddii waa laga shaqeeyaa ayada lafteeda laakiin qaybka aad leedihiin ka qaata biidni illaahi alkariim intaasaa raba inaan bulshada kula dardaarmo reer boondheere iyo reer shibis waddada haddii la dhiso oo aysan lahayn meeshii biyomareennada waxa waaye biyaha fadhiisanaya biyo hadday fadhiisan waddada baa sii goynaya arrintaas marka magaaladan magaalo burburta waaye laamiyo way lahayd way burbureen meelaha biyomareennaana way lahayd way burbureen waddooyinka marka sidaanoo kale aan mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa aan dhagax dhigno iyo marka aan xarig jarayno shaqadu dhammaato waddada la bixiyo la dhammaystiro labadaasaa annaga nimaadaa inta u dhaxaysa cidda aan ku ognahay inay la shaqayso sharikadda waa maamulka degmada isagoo bulshada kaashanaya waxaa laga rabaa meelaha biyomareennada inuu tusiyo uu yidhaahdo halkaanaa biyomareen ahaa jirtay biyomareenkeedii u sallax oo ka dhig ma diidayaan maxaa yeelay yacni waxyaabaa lagula heshiiyey ka mid tahay in waddo nadiifa ay dhisaan marka dabacaad mooddaa inuu ka jiro xagga maamulka isla markaas sharikaddana haddii aan wax lagula xisaabtamayn oo aan la dul istaagayn waxaa muuqata inay mataqaanaa ayadana aysan xil iska saarayn marka waa u sheegnaa mar walba runtii shirkadaha hadda annaga wax noo dhisana waa shirkado tayo fiican wakhti degdeg ah oo fiicanna way ku qabtaan shaqooyinka marka degmada ayaa u xil saaran waddo la dhisa inaan biyo fadhiisan oo ay tusiyaan meelihii biyuhu mari jireen dhinaca kale ee suwejka sida uu sheegay ku-xigeenkayga howlaha guud aad iyo aad ay markii laga hadlayo yacni urban planning ama qorshaynta magaalada oo dhan aad iyo aad ay u lacag badan tahay lacag awooddeena ka baxsan waa laakiin haddana go'aanka aan qaadanno wuxuu yahay inaan tallaabo qabanno hadba waxaan qaban karno aan qabanno maalan warta weyn oo boondheere waxaad og tihiin in la xalliyey biyaheedii weli ma xarig jarin laakiin baybabkii iyo suwajadii waa samaynay kii hore ee ka bilaabanayay maxaa la yidhaahdaa xawtaako ilaa badda ayaan ku xirnay sidii uu badda ugu dhici lahaana gebagabay noo tahay marka dhammaan marka howlaha sidaas ayaan u qaban doonnaa waxaa la rabaa marka qayb kasta oo bulshada ka mid ah ama muslimiinta ka mid ah inay yacni hawshooda ay si hufan dhammaystiran uga soo baxaan intaasaa raba inay